nin la dardaarmay xaaskiisa ayaa ku yiri xaaskaygii qof kasta gurigiisa ayuu aaday. Mashxaradii way dhamaatay, guurkiina wuxuu ahaa mid qurux badan, laakiin hadda waan gabagabaynay guurkii. Hadda waa waqtigii aan dhisi lahayn gurigeena, waxaa kaliya oo inoo haray waa labadeena iyo waxa aan noqon doono barito. Inta aan macaanka nolosha bilaabin, waxaan jeclaystay inaan kuu sheego wax yar mana ahan. Maanta wixii ka bilowdo inaan wax ka qariyo. Telefoonkayga waad isticmaali kartaa sida kaaga oo kale. Waxaa kaloo la socon kartaa Facebookayga, Twitterka iyo wixii la mid ah. Laga bilaabo maanta waxaan noqday caruur 5 sano oo la soo dhaafay ee nolosheeda waxaan ahaa nin weyn. Waxaan kicin jiray nafteyda subaxii hore. Waqtiyada qaar waxaan seexan jiray anigoo gaajaysan. Waxaan wax walba u sameyn jiray sida aan rabo. Waxaan sidoo kale imaan jiray guriga waqtiga aan rabo. Laakiin laga bilaabo maanta waxaas oo dhan way dhamaadeen. Laga bilaabo maanta waxaan noqotay hooyaday oo canaanata markaan guriga ka soo daaho. Waxaad noqotay hooyo i kicisa subaxii hore si aan u tago shaqada. Waxaad noqotay hooyo hubisa inaan seexday anigoo gaajaysan iyo in kale. Waa ku faraxsanahay inaan yeesho hooyo adiga ah. Waxaan rajaynayaa inaad noqoto hooyo wanaagsan. Ha igu noqon qof qalafsan. Waxaan kuu ballan qaadayaa inaan kugu madax adeegin. Mararka qaar waxaa suurtagal ah inaan madax ku xanuujiyo, balse waxaan kuu ballan qaadayaa inaan noqdo kan daweeyo madax xanuun kasta. Waxaan xanaaneyn jiray walaalahay wiilal iyo gabdho. Waxaan u ahaa sida aabahood oo kale. Sidaa darteed dhibaato uma arki doono. Sidaas iyo si la mid ah inaan aabbo kugu noqdo. Ku soo dhawow xabiibti nolosha cusub. Ku xirnow Sham Media.